السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إلى هانتين به خيارته هودا نقل صعوتاي هالكني ومريد ميديا qodobada warkan ugu door koran caawa idinku haynana waxa kamid ah dagaalo xoogan oo la sheegayo inay ka socdaan waqooyiga gobolkaasi Tigray oo halkaasi ay ku dagaalamayaan militariga Itoobiya iyo jabhadda TPLF dalka Suudaan oo baaq u diray qaramada midoobay iyo midowga Afrika in la soo kala gaadho khilaafka ka dhex taagan iyaga iyo dalkaasi Itoobiya dhageysiga dacwadda badda Soomaaliya iyo dalkaasi Kenya oo lagu guda jiro dhageysigeedii madaxtooyada Puntland oo war ka soo saartay kulankii Dani iyo beesha caalamka maxay tahay rajada laga qabaayay shirka la rajeynayo inuu dhawaan ka furmo xarunta Xalane qodobadaas iyo qodobo kale oo dheeraad ah iyo barnaamijkeena ku maqli doontaan hadii barnaamij ka noqdo isku soo noqod wanaagsan khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan oo aan ku bilaabay dagaalo culus ayaa dhex maraya sida la sheegayo jabhadda TPLF iyo militariga Itoobiya oo xulfaysanaya ciidamada Eritrea ee ku sugan deegaanka ama waqooyiga gobolka Tigray jabhadda TPLF ayaa sheegtay inay la wareegeen tuulooyin fara badan iyo magaalooyin waaweyn halkaasi oo ay sheegeen inay dagaal kaga qabsadeen ay kula galeen halkaasi ciidamada militariga iyo kuwaasi Eritrea TPLF ayaa sheegtay inay dileen in ka badan 1000 askari oo halkaasi ay ku qurgooyeen sidoo kale waxa ay sheegeen in ay qabteen ciidamo aad u fara badan oo la soo koobi karin oo boqolaal ayna ku qafaasheen halkaasi kadib markii ay ku adkaadeen dagaalka ay kula jireen ciidamada militariga Itoobiya iyo kuwaasi Eritrea sargaalkan TPLF waxa uu sheegay in laga dilay 100 askari ciidamada TPLF oo halkaasi khasaaraha weyn soo gaaray uu yahay inay 100 askari halkaasi kaga dhimatay dhanka kale TPLF waxa ay sheegtay inay soo afjari doonto ciidamada Itoobiya iyo kuwaasi Eritrea ee sida ay sheegeen ku sugan deegaanka waqooyiga gobolkaasi Tigray dhawaanahan halkaasi waxa ka socday dagaal xoogan oo u dhaxeeya TPLF iyo ciidamada Itoobiya oo sida la sheegayo garab ka helaya kuwaasi Eritrea balse waxaan la xaqiijin karin khasaaraha dhabta halkaasi ka dhashay beesha caalamka iyo dalka Mareykanka ayaa toddobaadkii hore ku boorinaya dawladda Itoobiya in ay joojiso dagaalka ay kula jirto gabi ahaanba ciidamada TPLF beesha caalamka waxa ay sheegeen dagaalada halkaasi ka dhacaya inay ku waxyeeloobeen dad shacab ah oo waxba galabsanin halkaasina ay ka jirto isirbeegsi lagu tirtirayo beesha ama dadka deegaankaasi Tigray dhanka kale waxa la sheegayaa dalkaasi Suudaan in wasaaradda arrimaha dibadda ay u dirtay warqad codsi ah oo ay u direen qaramada midoobay iyo midowga Afrika taasi oo la xiriirta khilaafka u dhaxeeya dalka Suudaan iyo dalkaasi Itoobiya dalka Suudaan ayaa warqadani waxa ay ku xuseen in beesha caalamku ay dhexdhexaadiso khilaafka halkaasi u dhaxeeya dalka Itoobiya ee la xiriira biyo-xidhanka dalkaasi Itoobiya uu dhawaan ku dhawaaqay in uu daafuri doono dhismihiisu sanad ka hor la bogay khilaafka u dhaxeeya dalka Suudaan iyo Itoobiya ayaa soo socday muddo dhowr bilood ah walow dawladda Itoobiya ay ka warwareegayso khilaafkaasi in ay ka hadasho ama ay warbixin ka dhiibto sida la sheegayo dagaalada halkaasi ku dhaxmaray dalka Suudaan iyo dalkaasi Itoobiya ayaa mar walba waxa la xaqiijiyay dalkaasi Suudaan in uu weerar joogto ku hayo gobolkaasi Al-Fashaq oo ay sheegeen inuu kaga maqan yahay dalkaasi Itoobiya dambaalkani maanta ay u direen hay'adaha qaramada midoobay iyo midowga Afrika ayaa waxa ay ku xuseen in hadii la soo kala gaari waayo iyaga iyo Itoobiya oo isku daydo Itoobiya biyo-xidhankaasi inay ka shaqeeyso in ay ka dhalan karto caqabad weyn ama colaad culus oo ka dhalata geeska Afrika sida la aligay dalka Suudaan waxa uu codsaday in la dhexdhexaadiyo sida ugu dhaqso badan halkaasina lagu soo afmeero khilaafka waa hadii dalkaasi Itoobiya uu yeelay Masar ayaa sidoo kale iyaguna aan raali ka ahayn in dalka Itoobiya biyo-xidhankaasi ay isticmaalaan oo ay suurta galiyaan in shaqadii halkaasi ay ka wadeen ahayd inay biyo-xidhan ku sameeyaan inay ka howlgalaan dalka Masar waxa uu la sheegayaa inuu la saftay dalka Suudaan waxa sidoo kale la sheegayaa Masar inay geysay ciidamo aad u xoog badan dalkaasi Suudaan oo ay ku sugan yihiin khilaafka xoogan ee u dhaxeeya saddexdan dal ayaa ka tashay biyo-xidhanka dalkaasi Itoobiya dhanka iyo Soomaaliya hadii aan u leexano madaxweynaha dawlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa maanta hoyga uu ka degan yahay magaaladaasi Muqdisho kulan ku qaabilay wakiilada beesha caalamka iyo saaxiibada Soomaaliya ee halkaasi ku sugan xarunta Xalane
xubnahani oo la kulmay Deni ayaa waxay kala yihiin ergeyga qaramada midoobay ee Soomaaliya Ambassador James Swan iyo safiirka dowladda Mareykanka ee Soomaaliya Ambassador Donald Yamato iyo wakiilada midowga Afrika ee Soomaaliya Ambassador Francisco Madeira. wakiiladani waxa ay kala shireen madaxweynaha maamul goboleedka Deni in kulankani waxa uu qayb ka yahay kulamo dhowr ah oo lagu gogol xaarayo shirka la rajeynayo inuu dhawaan ka dhaco magaaladaasi Muqdisho oo la rabay in laga arinsado arrimaha la xiriira khilaafka doorashada dalka Soomaaliya ee dhaaftay waqtigeedii. kulankani waxa uu qayb ka yahay kulamo goos ah hordhaca oo laga hadlayo arrimaha la xiriira khilaafka ka taagan doorashada dalka Soomaaliya. Saciid Cabdullaahi Deni ayaa wakiiladani waxa uu kala shiray arrimaha ay ugu gogol xaarayaan in la qabto dhawaan shir loo dhan yahay oo ay siyaasiyiinta Soomaaliyeed u dhan yihiin laguna qabto xarunta Xalane. shirkani waxa uu sheegay madaxweynaha Puntland inuu ahaa shir ay kaga tashanayeen sidii loo kaabagelin lahaa shirka la rabay inuu halkaasi ka dhaco xarunta Xalane ee u dhaxeynaya xukuumadda federaalka iyo maamul goboleedyada. madaxweynaha Puntland waxa uu sheegay in arrintaasi ay isla qaadaan mas'uuliyiintani kadibna ay ku heshiiyeen in shirkaasi sida ugu dhaqsaha badan loo guda galo. wakiilada beesha caalamka ayaa Deni waxa uu sheegay in goob kasta iyo mar kastaba uu diyaar yahay in la xal waara laga gaaro khilaafaadka ka taagan gudaha dalka Soomaaliya ee la xiriira dowladda waqtigeedu dhamaaday iyo maamul goboleedyada. haddana waxaad ku soo dhawaataan arrimaha la xiriira dacwadda badda ee Soomaaliya iyo Kenya ee maanta laga furay maxkamadda Hague. waxa inoo akhrinayaa Cabdi Nuur. maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ ayaa hadda si toos ah waxa ay u dhageysanaysaa dacwadda la xiriirta muranka badda ee u dhaxaysay wadamada Soomaaliya iyo Kenya. waxaa bilaabatay dhageysiga dacwadda kiiska badda ee u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya iyada oo ay ka maqan tahay Kenya oo cududaar aan sidaasi u buurnayn ka dhiibatay ka qaybgalka dhageysiga dacwadda oo ku taariikhaysneyd maanta oo 15 bishani aynu ku jirnay ee Maajo. maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ ayaa si rasmi ah waxa ay u furtay dhageysiga dacwaddaas waxaana khudbad ku aadan dooda Soomaaliya ka jeediyay siihayaha ra'iisul wasaaraha dalka mudane Mahdi Maxamed Guuled Khadar oo isagu madaxa ugu sarreeya ee hogaaminaya arrinta badda ee dhinaca Soomaaliya. Mahdi Guuled ayaa khudbad ku saabsan kiiska ka horjeediyay guriga nabadda ee xarunta cadaaladda adduunka iyada oo ay ku weheliyaan qareennada Soomaaliya iyo mas'uuliyiin kale. maxkamadda caalamiga ah ayaa waxa ay sheegtay inay ka xun tahay inaysan Kenya ka soo qayb qaadan doonin dhageysiga, hase yeeshee waxa ay sheegtay maxkamaddu in ay hayso qoraallo iyo dukumeentiyo ku filan oo ka turjumaya mowqifka Kenya ee arrintaasi ku saabsan. ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuled oo hogaaminaya wafdiga Soomaaliya ayaa sheegay in iyaguna ay ka xun yihiin maqnaanshiyaha Kenya. Mahdi Maxamed Guuled ayaa waxa uu sheegay in maxkamaddu ay siisay Kenya waqti ku filan oo ay ugu diyaar garowdo dhageysiga balse ay iyadu qaadatay qorshe u gaar ah sida uu Mahdi hadalka u dhigay. dhanka kalena maxkamadda ICJ ayaa dowladda Kenya waxa ay ka diiday 30 daqiiqo oo ay doonaysay in maxkamadda ay ka hor hadasho. maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ ayaa dowladda Kenya u diiday codsi ay u dirtay oo ku aadan in ay khudbad u jeediso maxkamadda ka hor inta aysan bilaaban dacwadda Soomaaliya kala dhaxaysa 11 Maajo sanadkani 2021. dowladda Kenya ayaa maxkamadda ICJ ka dalbatay 30 daqiiqo oo garsoorayaasheeda ay maxkamadda kala hadlayso sababta ay Kenya uga baaqatay dhageysiga dacwaddaasi. wasaaradda arrimaha dibadda ayaa maalinnimadii shalayto sheegtay in war rasmi ah ay ka soo saari doonto muranka ay Kenya gelisay badda Soomaaliya ka hor dhageysiga ICJ. sargaal sare oo ka tirsan dowladda Kenya ayaa The Standard Media KCO waxa uu u sheegay sida ay uga xun tahay Kenya habka ay maxkamadda ku wada dacwadda isaga oo ula jeeda in maanta la dhageysanayo Soomaaliya oo kaliya oo Kenya meesha aysan joogin. bishii Febraayo ayay ahayd markii maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda adduunka ee ICJ ay ku gacan saydhay dalabka uga yimid Kenya oo doonaysay in dib loo dhigo dhageysiga dacwadda badda ee kala dhaxaysa Soomaaliya sabab la xiriira cudurka COVID-19 oo saameyn weyn ku yeeshay hawlihii diyaar garowga kiiska ee ay waday Kenya. galabta ayayna maxkamaddu ka furantay magaalada Hague iyada oo laga dhageystay khudbad
uu uga hadlayo arrimaha kiiska mahdi maxamed guuled khadar oo dowladda soomaaliya u matalayay ama ahaa mas-uulka ugu sarreeya ee hawshaasi ku jira islamarkaasina maxkamadda ka horjeediyey khudbad qaadatay ugu yaraan 15 daqiiqo oo uu uga hadlayay xaaladda rasmigaha ee la xidhiidha biyo mareenka ay isku hayaan labada dal dhanka kalena madaxweynihii hore soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa isaguna war cusub ka soo saaray arrinta badda madaxweynihii hore soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ka hadlay kiiska badda ee muranka ay gelisa kenya taasi oo maanta loo fadhiya dhegaysigeeda waxa uuna soomaalida uu ku booriyey in loo midoobo qadiyadaasi la xidhiidha badda xasan sheekh maxamuud ayaa lagu tilmaamaa inuu yahay qof kaalin mugle ka qaatay kiiskani islamarkaasina xukuumaddiisii ay tahay midii ugu horeysay ee kiiskani geysay maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ guul ayaan u rajaynayaa kooxda difaaca badena waxaana ku baaqayaa inaan isgarab istaagno innaga oo meel iska dhigayna waxyaabaha kale ee lagu kala aragtida duwan yahay ayuu bartiisa ku soo qoray madaxweyne hore xasan sheekh maxamuud isaga oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu yidhi difaaca badeenu waa mas-uuliyadda qof kasta oo Soomaali ah waana guulaysanaynaa insha allahu niyadda khayr ha loo sheego hana loo jeedsado sidii dalka iyo dadka loo ilaalin lahaa ayuu madaxweyne hore xasan sheekh maxamuud sheegay iyada oo Kenya ay isaga baxday kiiska ayaa dacwadda dhageysiga maxkamadda ay jirtaa maantana magaalada Hague ee dalka Holland waxaa ku sugan waftiga Soomaaliya iyaga oo arrintaasi ka hadlaya